الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaanteed waxaa farxad noo ah annagoo ilaahay uga mahad celinayna in maanta uu markaska marti noogu yahay sheekhana alfaadil sheekh yuusuf aadam. sheekha in badan oo naga mid ah waxaa isugu kaya dambaysay xilliyadii muctamarka Sweden la qaban jiray sheekhu uu iman jiray. sheekh yuusuf intii hadda dambe ama intii dambana waxa uu joogay wadankii oo uu ku sugnaa iyo magaalada Hargeysa. marka sheekha waxaan leeyahay markaskan waa maraakistii ka dambaysay intii Yurub ay ugu dambaysay oo masjidka Al-Huda ee Finland ku soo dhawow. anigoo markaa ku hadlaya magaca maamulka iyo muslimiinta halkan joogtaba inaan sheekha ku soo dhaweyno aad bay farxad noogu tahay sheekh Yuusuf. waxaan maanta uu nagala hadli doonaa ama mawduuca maanta uu ka hadli doono uu ku dul wareegi doonaa al-ukhuwa al-iimaaniya ama iimaanka oo dadku ay ku walaaloobaan ama walaaltinimada islaamka. marka wax badan oo hadal insha Allah ma sii oran doono. sheekha sidoo kale berritana muxaadaro kale ayuu geli doonaa. waxaan leeyahay sheekh Yuusuf markaa falyatafadal mashkuura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتا إسلام كهو ونكسن سحيدي أهل الجنة اسكو سلام الجيران كدب. وحن آدي أرنتي وفر أحسن هاي إن ألكن إذن كم إمادو ودن كان ملك الله يقول ودماشان كإيمي آدي آد وقصوف فقام وقصوف فق. إذا كنت أنتي ناس سقط مادين إن دينتيني وحكفا إلي ستان أو وحكما تغان كفهمتان iyadoo runtii sida idinka muuqata aad tihiin dad ay ka muuqato iimaan iyo walaalnimo iyo isjeceyl ay ka muuqdo, dad maaragtay intaqaanaa doonaya maadaama dalkoodii ay ka soo fogaadeen inay diintooda si fiican u ilaashadaan. oo weliba ay iga muuqato carruurta lagu soo jamciyey masjidka iyo markii hore aan ugu imi iyagoo qur-aanka dhiganaya, iyaduna ay tahay calaamad kaloo wanaagsan oo ayna carruurtiinana meesha qur-aanka ku mataqaanaa ugu dhigtaan, diintooda ugu xafidaan, idinkoo mataqaanaa dumarkiina idiin xijaaban yihiin halkan aa isugu timaadaan rag iyo dumar oo aa isku daydaan wixii mataqaanaa aa faa'iidaysan kartaan faa'iidaysataan. aniguna ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala waxaan idiin sheegayo inuu mataqaanaa camalkayga khaalis ka dhigo oo ilaahay dartii waxaan u samaynayo aw iga noqdo oo ilaahay ou ka dartiro istustus iyo ismaqashiin iyo adduunyo darteed
يعني ولدشهد مانت يوم القيامة وحان إلهي الله ارتقاه النقضة سيدو كلا إلهي وحان دمان تاني نوغا بريا إنو جنة الفردوس إنو كل ميو إنو كل جنان عذاب رسول مرينا إلهي جنة توسينو إن شاء الله تعالى موضوع عندنا يين أن كه الله وسدين بهريد كل شيء وحويا الأخوة الإيمانية الأخوة الإيمانية معناه ذو وحويان ولا لماذا إيمانك لبو ولا لوبه وأتذكرته معناه سويني تاي ضدكو مبادئ بيكو ولا لوبان أما مركو ضدكو الناس بالغو ولا لوبه قبيل بالغو ولا لوبه والدنيات بالغو ولا لوبه مبادئ كلا أمتك عن ضدك سوي رميان بالغو ولا لوبه لكن أنت صورا وحقو ونكسن يدعو أي ضدكو إلهي درتي ولا الكل نقضة halka waxaad ka fahmaysaa waxaliya wixii iimaanka saxiixa leh dhammaantood inay yihiin dad walaalo ah oo ay waajib tahay inay isjeclaadaan oo waajib tahay inay isu hiiliyaan oo waajib tahay inay kala danqadaan oo waajib tahay inay nusunna seexeeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina leeyahay watacaawanuu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan wattaquu allah إلهي بإن سبحانه وتعالى واتقوا الله إن الله شديد العقاب روحوا الله إلى الله سبحانه وتعالى هداتهين دتكي مؤمنين تاها دتكي مسلمين تاها هداتهين اسكوك الميستا وحسكو قبتا وناقا إيا خيرك إيو تقوى إلهي اسكو تقع واسكوك الميستا وحي خير إيو وناكسن إيا متغنى أمدينا أنفعية ونفتينا أنفعية ودلكين هي دينتينا أنفعية وإسقوك على وحسقوك قبطة ديالا كورين تقوذي إلهينا إسقوك المية قفور بس دي إله أغبق الله كلك عنها كسيو ولا تعاونوا على الإثم والعدوان دنبقى إيا عليتن كان حسقوك الميسانين دبدي بقى مركز أركتي آياتو لما الرمودنا وإنا فريسا لما الرمودنا وإنو ديريسا وإلهي سبحانه وتعالى آيات إنه غفريا إنه خير ككم ذونا وإن متقنا يسوتنا تقول إلهي إنه كم ذونا يسوتنا وحي متقنا الدنبيا هي وحي عليه تري علاد كين ينا ونحدنا علاد كن متقنا كدرنا ينا إنه ننكع اللوبين أين سوء إيماننا أين تاك جوكسنو إن إلهي كبغنو إلهي شديد العقاب ويا وإلهي سبحانه وتعالى سوتين هو واضح يا مركب إنما المؤمنون إخوة ذاتك كلية إيه ولا لها وحويان ذاتك مؤمنين إنما ليلادو وكلمة أداة حصر ويان بمعنى وحا أي كوكو بيسا معناها أوردن وحا أيدا كدن بيا معناها وحويان ذاتك قرى إيه ولا لها إيه ولا لمدود أي وحتريسو مركا آخر الله تقو يأدونك اللبضبا وحويان وولا لماذا إيمانك لقو ولا لوبه وكروا إلهي ليه سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله وكروا إلهي ليه سبحانه وتعالى ضدك مؤمنين رجوا ذي الدمر كودبا رجع مؤمنين هي الدمر كمؤمنات قارب قارك كله أي جعل أيهن ويسجعليهن ويسود قنيان ويسون حريستان ويسكالميان ويسون سيحيان وناقي إسفران حمانتي إسكعليان ومتغنى جعن كليوي وناقي إسفران حمانتنا ويسكعليان سلادي أوغان سكدي بحيان الله يطيعان كوا سوكم إلهي ونحريسني سبحانه وتعالى نسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا منه ولي النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير قفك مؤمنة أما قفك إذن كمده إيمان ربا رمين مايو إلى أولالك لجعل ضوحوا نفتيس لجعليها كبر علي النصوص تأينو أخريه إنه وحين أباهنا النصوص تأينو سوى نكسن معناه هو أفهمنه وأين دوحنا بل هذا الكإلهي إن الله سبحانه وتعالى
iyo hadalka uu nebigu ina leeyahay sal allahu alayh wasalam midkiin ama mid idinka mida iimaan ma yeelanayo dhaba ilaa uu walaalkii la jeclaado wuxuu naftiisa la jeceliyo khayra macnaha uu la naco walaalkii wuxuu naftiisa la necab yahay oo shar ah qofkii hadduu naftiisa la jeclaan walaalkii la jeclaan waayo wuxuu naftiisa la jecel yahay oo wuxuu walaalkii la nici waayo wuxuu naftiisa la necab yahay waxay ku tusinaysaa iimaankuu sheeganayaa inuu ama kulliba been yahay ama iimaan daciifa uu yahay weeye wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam almu'minu lilmu'min kalbunyaan yashuddu bacduhu bacdan washabbaka bayna asaabicihi wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minkaa kale wuxuu ula mid yahay sida dhismaha qaarba qaarka kale xoojinaya dabeedna farihii buu sidaa isu dhex gelaya calayhi salaatu wasalaam macnaha waxa weeyaan marka aqalka la dhisayo waataad aragtayba dhagax baa la dul saaraadoo lagu dhajiyaa ama leban baa lagu dhajiyaa ama jaajuur baa lagu dhajiyaa si aqalkii dhismadiisii ay u adkaato sidaasaa mu'miniintuna ay isu adkaynayaan oo la doonayaa inay noqdaan dad isjecel oo mataqaan gacmaha is haysta oo diidaya inuu cadow kale soo dhex galo wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam mathalu almu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى وحول عليه الصلاة والسلام تلمانت مؤمنين أيليهين واحد مودا إليهين شرك ليه سيدة يسوج عليهين يا سيدة يسقون حيان يا سيدة يسقون حريسان أيان واحد مودا إنه شرك ليه شركة سو شيء انتي كلا لقيب سنة markuu bukoodo xanuunka iyo soo jeedka yacni waad garanaysaa adigoo ilo ku xanuunayso suuragal maaha inaad hurdo macaan seexato adoo dhegtu ku xanuunaysidna seexanaysid adoo madaxu ku xanuunaya ma seexanaysid adoo calooshu ku xanuunaysa ma seexanaysid wahaakadaa meel jidhkaaga ka mida iyadoo ku xanuunayso seexan maysid sida macnaha waxaa laga wadaa caqli ma aha diinna ma aha iyadoo muslimiintii qaar ka midu ay dhibtoonayaan oo mataqaanaa cadow owlaynayo ama ay mataqaanaa haddii kore gaaja hayso ama cudur hayo ama u dhibaato iyo mushkila ay haysato inaad adigu iska faraxsanaato oo iska dheragto oo iska seexato cala alaqalli haddaad wax kala garanaya waxba u haynin inaad xanuunka la qaybsato oo aad mataqaanaa arrintooda u soo jeedo ood cala alaqalli ilaahay u barido dhibka haya ilaahay inuu ka qaado waxaad haddaad u tari kartana aad wax u tarto حاليا وحاد وجود بكريش سيدا درتين أيام معناها تشبيه كو إيمانية نصوص تعال مغليسان القرآن كي حديث يسقط جرت ولا ليا يا واحد نكون فهمينا سيدا أي هبون تهاي إن قفك مسلم كا أو هذا قفك كلام مسلم كا ولا الكيسة ولا ليا الوحويان ولا اللمو كوين ولا اللمو دي النسبك لما دي قفه ولا على هاي أبيه هو أي وذا دلين ayna iimaan ku walaaloobin ma iyagoo walaala ah walaalnimadoodu wax qiimo ay ku fadhideen ma jirto marka walaalnimada iimaanku waa mid tanasabka ka weyn waa walaalnimo dadka muslimiinta oo dhan u dhaxaysa xataa haddii wadamada ay mataqaanaa ay u dhasheen kala fog yihiin guryahay degan yihiin kala fog yihiin afafkay ku hadlayeen kala fog yihiin midabyada ay leeyihiin kala fog yihiin qabaa'ilka ay leeyihiin kala fog yihiin أي حيستان أو كلا فوقته يعني قفك متقن أفريقيا ماشي كل شيء سجوجا هي قفك وقوي أوروبي متقن ماشي كل شيء سجوجا هي قفك قلبيت ماشي كل شيء سجوجا أما بري ماشي كل سجوجا وحويان إني نقدان ضد ولا لا أو إسجعل أو إسكنحة أو إسكمرجودا أو قف ولا قفك كلا نبكي سودي بيوم ولا لمور متقن كيريسا إني ولا لها سهيليان أو كينيسا إني إسلتاليان أو كينيسا إني وناك إسفران حمان تسكريبان وولا لما إنو ديريسا إنو ولالكو ولالكيسا كلام مسلم كأخياميو أما أو متغانا إيادو لديبا يكو إكتو أو ندبكيسا متغانا أو نكدن قنين وولا لما كينيسا إنو قفك كلام مسلم كأنيكيسو حاران كان نغضو وأي عابتهاي أما حاران تهاي قف مسلم أنيكيسا إنا حق دركو دادسو inaad maalkiisa xaqdarra ku cunto inaad sharaftiisa mataqaanaa meel kaga dhacdo
ولا كينيسا هدي هذا وحا سميسو إن الله كو عذابيه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وحلي الله سبحانه وتعالى dadka dhibaya dadka mu'miniinta oo ragga ah iyo gabdhaha mu'minaadka ah iyagoo dambi ayna gelin ku dhibaya laynaya dad muslimiina ya iyagoo aan dambi lagu dilo mutaysan ama garaacaya iyadoo dambi lagu garaacaan mutaysan ama caayaya iyagoo dambi lagu caayaan mutaysanin qofkaas wuxuu dusha ka qaatay dusha ku xambaartay dambi aad iyo aad u weyn oo cadaab keenaya إلهي سبحانه وتعالى وحدد إنه تلمامي أما إنه شيحي وضو لو مرو دي على كورنيا هاي ولا لماذا نبتع هي قواعد كي تيرك يسكت تاجيسو وحنا قفك مسلم كا واجب كا إنه ولا لماذا إلاليو أو كإلاليو وحي كهر منيا أما طريقة الاستاجية إلهي سبحانه وتعالى وحي إلى أمري إنه شيء يعني مركز النصوص الصوص تأخرينه وحيالها ولا لماذا نبتع وحرمية oo loo baahay inaguna inaan walaaliin iska ilaalino waxa kamida waxa Ilaahay inoo sheegaya wararka la inoo soo guuriyo oo qof aan Ilaahay ka baqanayn markuu war soo guuriyo oo ka soo guuriyo qof kale hebel baa sidaa yeelay ama hebel baa sidaa yiri ama reer hebel baa caynkaa yeelay ama koox ma taqaan magaalo hebel baa waxa sameysay ama koox hebel baa caynkaa sameysay marka warkaas oo kale inoo yimaado inaan warka iska hubino inta aynaan ku dhaqaaqin warkaas waxa uu sheegay bimacna waa maxay hadii uu qof aan Ilaahay ka baqanaynin ama qof aan warkiisa lagu kalsoonayn oo warkeeno warkaasuna uu ku saabsan qof muslima ama koox muslimada ama qabiil muslima in marka warka aan marka durbadiiba la qaadanin la iska hubiyo maxaa yeelay waxa laga yaabaa hadii warkii la hubiyo la iska qaato in marka laga gaaro warka go'aan ku saabsan dabeedna lagu dilo qoladii kale oo dhibaato loo gaarsiiyo dambi ayna gelin lagu laayo dibad hadhow laga murgo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyan an tusiibuu qawman bijahaala fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ilaahay yaa dadkii mu'miniinta haddaad tihiin hadduu idiin yimaado qof faasiqa oo aan Ilaahay ka baqanayn war idiin la yimaado ina warka caynkaas aan wadaa warka iska hubiya maxaa yeelay haddii aydan hubinin waxaa laga yaabaa in uu qolo kale oo warkaa laga keenay dhibaato u geysata iyagoo waxba iska ogeyn oo aan dembi gelin dabeedna hadhow ka murugoota aayaddaas waxay ku soo degtay quraanka marka sabab nasuulkiisa la ogaado sababta ku soo degay la ogaado quraanka macnihiisa la fahmo waxa leeyahay niman nabiga calayhi salaam markii uu joogay intii aan dadku wada muslimiin dadka carbeed waraaqo u diri jiray ama dad buu diri jiray oo dhan jiray mataqaana diinta Ilaahay baa idinku yeedhay soo muslima qola muslimti marka u diray ninkii warkii u diray ayay nabiga aqbaleen oo way soo muslimeen markay muslimeen ayay waxay yiraahdeen waliba waxaanu keenaynaa xoolo diinta lagu aayido oo diinta loogu adeego oo dadka faqarada iyo masaakiinta wax laga siiyo xoolahaasaanu keenaynaa taariikhda markay intaa tahay waqti go'aan bay ka qabsadeen dibadda waxaanu soo raacinaynaa hadii alla kale waxaan loo soo dirtaa nin wixii naga gudoomo oo naga soo qaado nin buu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam markii waqtigii la gaadhay ninkii markuu dhexda marayo yaa shaydaanku u qurxiyey been oo wuxuu yidhi mataqaan nimankaa haddaad u tagto inay ku dilaan baa laga yaaba dibadda wuu soo noqday nebigii waa war uuna hubin u sheego wuxuu yidhi nimankii reer hebeel aad ii dirtay way gaaloobeen oo diintii way ka baxeen anigana waa idili gaadheen nebiga calayhi salaatu wasalaam arrintiitu ka xanaaqay ayuu ciidan diyaariyey baa la yidhi ciidan buu diyaariyey ciidankaasoo nimankii iyaga ahayd la yidhi way gaaloobeen soo edbiya ciidankii oo sii socda ayaa dhexda waxaa kaga hor yimi rag odayaalo reerkii lahaa way gaaloobeen ka socda xoolihii ay yidhahaan waa bixinaynaana wada oo nebiga xaggiisa u soo socda calayhi salaatu wasalaam iyagii ciidanka markaas ka hor yimaadeen war maxay ahaadeen miyada ahay ninkii nebigu soo diray dili gaadhay waxay yidhaahdeen made annagu nima waxaan dili gaadhnay ma jirto
cid noo timina ma jirto anana sidaan u muslinay baanu diintii u haysanaa xoolihii aan nabiga u ballan qaadnayna waa annaga wadna xoolihii nimankii wafdiga ahaa ee reerkii ka yimid oo xoolihii wada iyo ciidankii iyada diray nimankaa inay soo edbiyaan loogu diray oo wada socdaa madiina ku soo noqday nebigu wuu yaabay war heedhi maxay caan kara maya sidana weeyaan nimankii waa kuwana way muslimeenoo islaamnimadii kamay noqon xoolahay ballan qaadeenna waa kan baa layidhi dee aayadinaa soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba fatabayanu dadkii mu'miniinta ahaayo shaksi faasiqa hadduu idinla yimaado war beena ama war idinla yimaado iska hubiya si aydaan dad masaakiin oo dhib geysanin aydaan dhibaato ugu asintaana u dhibin iyo waxba iska ogeyn dibada ka murugotaan arrintaa iyada taa marka halkaa durbadiiba maxaad ogaatay macnaha waxyaalaha walaalnimada aynu soo sheegnay kharibo waxaa ka mid a war beena oo la isu guuriyo o la yidhaahdo hebel caynkaasuu sameeyey hebele sidaasay samaysay reer hebel waxaasay sameeyeen qole hebel ama jamaaca hebel ama naadayaal ku rayahay dawlad hebel ama qabiile hebel waxaasay sameeyeen arrintaasoo ah dhinac marka qaarkood gelaysa waxyaalaha isku dirdirka oo dadka la isku dira ah waxay idhahdeen culimmadu dadka isku diraa oo dadka kale intay been ka sheegaan labadii qolo ama laba reer ama laba qof isku dilaya waxa weeyaan baa le saaxir dadka wax sixra way ka xun yihiin baa le waxaan jeclaynaa idiin soo guuriyo qiso nin sheekoo beri wax noo akhriyayay oo sacuudiya uu noo sheegay berigii wuxuu yidhi addoonnimada ay jirtay oo la is addoonsan jiray nimanka dadka qaarkood addoonnimada la addoonsan la iibsan jiray baa riyaad wuxuu yidhi nin dhallinyaro ah oo xoog badan oo la iibinayaa nin arkay oo lacag yar lagu iibinayo markaasuu yaabuu yidhi waa maxay ninka lacagta yar lagu iibinayo markaasi waxay yidhaahdeen ninku ceeb buu leeyahay ceebtaa darteed baa lacag yar loogu iibinaya oo muxuu sameeyaa buu yidhi wuxuu sameeyaa buu yidhi dadku isku diraa qofku war ka qaadaya qof kale u geenaya mid kale markaasuu wixii dadka madaxa isu wada gelinaya wuxuu yidhi aniga waxba yeeli maayo waa gadanayaa oo qaatay gurigiisii markuu geystay ayuu ninkii markaa dee shuqulkiisii buu bilaabay gabadhii oo ninkaasu qabay ugu tago wuxuu yidhi sir baan kuu sheegaya gabadhay ninkaagu wuu ku dilayaa waxaan kaa kuu sheegayaa ninkaagu wuxuu go-aan ku gaaray inuu caawa ku gowraco kawkaas markaa dee haddaad doonayso inaad iska celiso halkaa sariirta madaxeeda midyo af badan gasha buushi waaya habeetee waa jasaaka allah khayr waad ila talisay sariirta madaxeeda midyo gashatay ninkii u yimi wuxuu yidhi caawa markaad gurigaaga tagto wadaaddii aad qabtay waxay go-aan ku gaadhay inay kaa takhallusto adoo hurdo ay midyadaa ay ku gowracaysa markaa waxaad yeeshaa dee adiga kula jirtaa waxaad yeeli lahay haddaad doonaysana in arrintaa ina xaqe ogaatana bal sariirta madaxeeda midyada ku jirta arag uu soo baxado markaasuu yimi sariirtii madaxeeda markiinta kor u qaadaysaa midya intaa leeg baa ku jirta uu soo qaado maalada rabta inaad disho weydo iyadiibu geeshi ku gowracay gabadhiibu gowracay markuu gowraco uu u tegay gabadhii reerkoodiiyo wuxuu ku yidhi gabadhiinii ninkiiba qabay baa xalay dilo khalaas way dhimatay reerkii baa soo cararoo ninkiiba iyana dileen reerkii ninku ka dhashuu tegay wuxuu yidhi ninkiinii hebel ahaa waxaa dilay nimankii gabadha uu ka qabay baa dilay labadii reerna afka mataqaana gawada iska saareen marka halkaa u fiirso ninkii dhibay oo gabadhii dhibatay oo reerkii nin hadiyaala ku reeyahay labadii reer isku baabee waxaas maxay ka dhalashay macnaha waxaa weeyaan in jaa'akum faasiqun binabain fatabayan halkaasaa la khilaafay macnaha waxaa weeyaan hadiyaala ku reeyahay war aan la hubin oo la rumaystay yacni gabadhan markii ninku beenta ula yimi hadday tidhaahdo waro naga tahay dafu ka qaadi belaa ku qaadi maxaad ku hadlaysa ninkayga waa wasicelle xaguu iga dilaya ama markuu isaga u yimaado ou yidhaha gabadhaada ku dilaysa xaaskaa ku dilaya markuu u yidhahdo naga tag beenaala way iska kaxayn lahaa arrinta way iska qaboobi lahay marka halkan waxaan ka garanay macnaha dadka isku dira dhibaatada ay leeyihiin iyo haddaan qofku iska hubinin yaa weliba maaragtay arrintaa isku dirdirka
waxay ku badan tahay waqtigan xaadirka ah dumarka khaasatan dumarka Yurub soo yaacay ee u soo bayhoofay maalin dhawad baa la sheegayaan oo London jooga waxay gabadh telefoon u dirtay waa tan ay dumarku ma shaqeynaya dumarka ragga la shaqeeyo dumarka qaarkood waa caqli xun baa intay guriga iska fadhiistaan wadaadeen dumarka ninka shaqeeya adiga oo ku yahaanaysto marka martii timaado warkaale inaka bambar ka soo bedel كان دمرك شاهو سكري بير هذا دمرك يعني وحوق عقلك كهو مركب متبعد معي إني ناك صاحبتي هذا كنت خلصته نينك تليفون بقعدتي ما دام على السكار إن تليفون قصال وضع الله مركب في النص الشيطان كفاية السنة واحد يذهب لي ها ما مقلي سابي تري ده على كورن هاي كفر كامتك على خرف زيني ها وانك يعقل كي حاجة يبت كو يركب أنت قريبا تبعت الخير غير السيسي يركب أوي مارتي وأنك يجي بمبرك كبدلية سجى بمبرك هذا كبدلية شاهني أنت منك سجى يسوع كرنية أنت دي أمك سجى يسوع ويلك وحلية كل بس قال الله مركز يسير كم غشي سويلك وحلية ويلك وحلية ما أنا ولا ساسي كنت هذا ما أنا تدبع أمرك إله إلا بضن نين كذا تنوح سكدر نين كذا هي ناكتك وحكدر نينك لبضن هو صاحب labadina wada socda baa tii lagu dirayay ninkeeda u soo wada galay iyadoo telefoon ku hadlaysa oo sidii ula hadlayso le waxa imka ay haaqay waxa bambarka bedel iyadoo leh baa waxa soo galay kii bambarka bedelay la sheegay iyo tii la fidnaynay ninkeedii waa soo wada galay hadooba iyadoo ma taqaana marka ninkan la socda ninkeeda inuu kan lagu dirayo in kan adiga wax xaqaya ay markaas soo salaam alaykum ninkeedii baa la hadlay wuxuu yiri ninkana waa hebla ninkeedii weeyaan tiin telefoonka ku jirta iyada heblada la sheegay hebladaati intaqaana hebla ninkeedii weeye aqli badan bay heedankaas iska aamusay hebla ninkeedii baa adeer iska war waa nabada tiin alkii bay leedahay waa kaasoo haddana bambarkiiba bedelaya haddana markay alkaa dhamaysay ee ay nimankii tageen ayay telefoonka codsa markaasay tiri waxaan ku waxaa tahay waa ku ogaaday maalin dambe telefoon hay soo diray waxaa tahay ku ogaaday ana qof dumar aad aqli badan bay heedo maskax badan ilaahayna wuu waafajiyay subhanahu wa ta'ala taana ilaahay baa fashilay waxaan ka jeedaa macnaha waxyaalaha dadka walaalnimadooda khariba ee qoysaska baabiya ee dawladaha baabiya ee qabaa'ilka baabiya ee ummadadan baabiya waxaa ka mid ah warkan la soo rarayo ee ama beenta ah ama la doonayo in dad kale lagu xumeeyo lagu laayo wuxuu ilaahay inoo sheegay subxaanahu wa tacaala walaalnimada waxaa ka mid ah waxyaalaha baaqi yeela haddii laba qolo oo muslimiinu ay islaayaan labada qolo waxay noqon kartaa laba shakhsi waxay noqon kartaa laba qabiil waxay noqon kartaa laba kooxood laba shirkadood laba dawladood dad muslimiinu haddii islaayaan ilaahay wuxuu faray subxaanahu wa tacaala dadkaa iyaga ah in la dhexdhexaadiyo oo mataqaanaa la isku dayo in xumaanta dhexdooda martay laga suuliyo wanaag dhexdooda lagu beero haddii labada qolo midkood ay diidaan mataqaanaa heshiiskana meel looga soo wada jeesato ilaahay muxuu yidhi wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagad ixdaahumaa cala alukhraa faqaatilu alatii tabgii xataa tafiya ilaa amri illah wuxuu leeyahay laba kooxood oo mu'miniinta ka mid ah hadday islaayaan intii nin kala heshiisiiya oo xumaantii dhexdooda martay wanaag ugu bedela oo ku heshiisiiya weliba cadaalado cidna ha u eexanina laakiin haddii labadii qolo midkood ay diido waa inaad dhinac ka soo wada jeesataan oo iyadii mataqaanaa ka hor timaadaan halka iyadana waxa weeye waxyaalaha walaalnimada qariba waxa weeyaan dadkii muslimiinta ahaadoo khilaaf dhex maray oo iscunaya oo islaynaya in la isku daawado oo aan la heshiisiin ama loo kala eexdo ama tii daalimada ahayd aan la qabanin oo aan laga hor joogsan waxaan caado u yeelanay haday weliba Soomaali nahay marka laba qof islaayaan ama laba kooxood ama laba qabiil inaynu mataqaanaa la kala safanno oo aan lana heshiisiin ee labada geesoodba mataqaanaa qolal ay raacdo yaa haddii ay labada qolo midkood heshiisiyo midkood diidana aan dan laga gelin oo aan qofka qolada qaldan la qabanin yaa oo la leeyahay haddaanu qabanno ama aan u sheegno qaladkooda annaga ayaa hadhow nala eedayn doona sidaa darteed baa ilaahay marka inoo sheegay wuxuu yidhi inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum wattaquu allaha lacalakum turxamuun
مؤمنين تأيقون با ولا رايه لبدا كوحود المسلمين تا إسلاي هشيسية عدالتكو هشيسية يا حايالي هذا إذا سيدا يالين ولا لمدي كميدا رشي إلهينا كبغى سيلين ابن حرس مركا كذب إلهي سبحانه وتعالى وحي نوشيكي الرماها كينا إني دادكو إسلايان مسلمين تا دي نغطو لبا قف دي نغطو لبا كوحود دي نغطو كوح رقا إيا كوح رقا دي نغطو كوح دمر إيا كوح دمرا وحا كمدا إسليديدا لإسليديو إيا يسيدا لإسياسي يا إني قولا كلا أي بو أركتو إني كوناكسيين إني كرر متغانا كرر وناكسيين إني كلان ديريسيين إني كقبيل وناكسيين إني كحول بديهين إني هكذا معنا قولا قولا ذك العرك وأركيسا إني كفي عنده إلهي وحي نوشاقي وركا إني دعك تبكوا لا يسيا الرقع كوا كلا يسيا ليديا إني كوناكسيين عند الله دمر كان يسيا ليدي هدمرنا يدمر يسن كوا لا يسيو دمر كعاب كوا يسيا إني كخير بديه بيلا وش قرأ كرتا جد كان صومالي لا يلاهو waxaa dhici karta inay qola tiraahdo annagu haddaan reer hebel nahay laan dheeraanay marka sidaa darteed reer hebel waanu ka fiicannay ama uu yidhaahdo muxuu ahaaye kuwaas idinku fuqaraa tihiin annana maal qabeen baan nahay idinku jaahiliin baa tihiin annana mutacallimiin baan nahay annagu mataqaan jawooyin caynkaasaan haystaa idinkuna mataqaanaa waxaan doonaan kugu samayn karaa inuu yidhaahdo hebelow waxaa tahay adigu qoladii mataqaanaa la yasi jiray midgaan baa tahay iyo tumaal baa tahay inuu yidhaahdaa suura halkaa markaa waxaa ilaahayna xusuusinaya in arrintaa iyada ay tahay waxyaalaha dadka ay isku nacaan oo walaalnimadii ou ilaahay inaga dalbay inaynu xoojinno waxyaalaha daciifiya ama baabiiya ee dadka isku laaya isyasidaa la isyasayo iyo qofkanu inuu arkayo qofka kale inuu ka fiican yahay yaa ilaahayna wuxuuna leeyahay inna akramakum cinda allaahi atqaakum dhammaantiin waxaa idinku wanaagsan ilaah agtiisa qofba qofku ka taqwa badan yahay qofba qofku ka alla ka yaa badan yahay oo ka cibaado badan yahay oo rabbi uga dhowaan badan yahay oo ka niyad wanaagsan yahay ayuu ilaah agtiisa ka fiican yahay haddii aad mataqaanaa quruxdiisa geedka dherarka halkaa gaadhayo oo xoog muruqiyo waaweyn yahay oo xoolo badan ou haysto oo jago fiican meeshu ka shaqeeya ay tahay shaqo wanaagsan ou haysto ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama wasiir ama agaasimo ama wax mataqaan ra-isul sharaki uu yahay laakiin awna xagga diinta ku fiicnayn mid iska miskiin oo laga yaabaa inuu luqbatul caysh ku cunaba aan haysanin ama mid gurguuranayo aan lagu yiba lahayn oo ilaahay ka baqayo ayaa ka fiican xaggan markay yidhaahdaan reer hebel baan nahay qolada faanaysee la laandheeraan nahay haddii awna dadkaasu yihiin dad ama ninka faanaya hadduu nin ilaahay ka baqaya oon ahayn kan loo faanayee laleeya laangaa baa tahay abeena gumeed baa tahay ayaa ilaah agtiisa kaga wanaagsan nacam waxaan maqashay filayaa nin sheekha oo la odhan jiray sheekh cali samatar ayaa nin caayo markaasuu yidhi naga aamus midgaan yaho midgaan ku dhalay markaasuu yidhi ninkii jannada laga waayaa midgaana yacni bal inaa midgaan in kale waa arki doonta aan dhimanno aakhire isugu nimaadno dee ninkii jannada laga waaya kaasaa midgaana miyay runtiisa ahayn ninka jannada laga helo kaasaa aynan mataqaansaa gob ah kaasaa laandheero ah kaasaa shariifa ninkii jannada laga waaye naarta galay kaasaa midgaana kaasaa inan gumeeda kaasaa wax wala xumaanoo dhan ay ku dhamaato idan macnaha inaad qof iyo muslimka waxaan idinka doonaya khaasatan markay qurba joogtaan ee dalkiina ka timaadeen oo aad joogtaan dal aydaan isku diinahayn oo laga yaabaa in mataqaanaa carruurtiina laydinka fasaadiyo oo laga yaaba idinkii mataqaanaa haddaydaan cilmi lahayn shubahaad diintii mataqaan khalkhalkaageliga lagugu beero waxaa la doonayaa inaad baaraka allah fiikum aad ogaato haddaanad diin lahayn haddaanad ilaahay ka baqan haddii aanad waajibka ilaahay ku saaray gudanin haddii aanad waxa mataqaanaa lagaa raba ilaah agtiisa iyo rasuul agtiisa aanad la imanin inaad waxaad gelaysaa ay tahay meel xun iyo naar iyo mataqaanaa meel cadaab waxaa loo baahan yahay inaad sharaf haddaad doonayso sharafti waxay ku jirtaa adiga oo diinta ilaahay qabsada sharafti waxay ku jirtaa adoo amarka ilaahay ka rasuulka qaata sharafti wallaahi waxay ku jirtaa adigoo yidhaahda maxaa ilaahay i faray oo sameeya maxaa rasuulku i faray oo sameeya maxaa ilaahay rasuulku ii diidan oo ka fogaada dadka mataqaanaa ula dhaqma akhlaaq wanaagsan oo dadka mataqaanaa oo dhan weji wanaagsan ula yimaada tal mataqaanaa qofka oo ku liibaana waa ta
waxyaalaha ilaahay oo u sheegay inay walaalnimada xumeeyo waxaa ka mid ah cayidan dadku mataqaanaa muxuu ahaa ay iscaayayaan ee qofka kale mataqaanaa muxuu ahaa au liidayo oo mataqaanaa muxuu ahaa au leeyahay hebel caynkaasaa tahay waad fool xun tahay waa caloolo weyn tahay waa indha xun tahay saasaa tahay ilaahay wuxuu yihi walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu bilalqaab wuxuu leeyahay ha iscaayina oo naanisaa xunxun ha isugu yeedhina cayida qofka kale oo caayay waxayuun bal qof muslim oo kaa hor yimi gaaladu ma sameeyaan afkeennu waxa weeyaan inaad tidhaahdo hooyada iyo aabbaha waxaa ku samey bal diinta qofka uu caayo ilaahiisa bal inu idhaahdo mataqaanaa ninkiiyo qofka walaalkiisa tuug iyo tuug ku dhalay beenaalayo beenaalo dhalay khaain iyo khaain ku dhalay kiisaa iyo saas oo ahaayo subxaan allah arrintaa maxaa keenaya marka diin xumo aad keenaysa marka saa darteed miyuu ku jeclaanaya qof maalin walba mataqaanaa muxuu ahaa aada caayayso qof aad maalin walba tugiyo tuug dhalay khaain iyo khaan dhalay beenaalayo beenaalo dhalay kii caynka aad leedahay ku jeclaan maayo marka waxa weeye waxyaalaha walaalnimada dhaawaca waxaa ka mida iyadoo dhacays caayo iyo iyadoo naanays xun la isku bixiyo kii caynka mataqaanaa hawe cawarow alolweynow kii gaabnaadow midgaanow sidaanow naanaysaa xunxun la isu bixiyo iyaduna waa waxyaalaha qofka mataqaanaa walaalnimada wuxuu dhima oo loo baahay walaalayaal inay ka fogaan gaar ahaan marka qurbada joogtaan waxaa loo baahayay inaad iskaashataan oo sidaa alxamdulilah u garateen inaad masjidka caynkan oo kala samaysataan oo sidan isugu timaadaan oo sidaa khayrkii u wada dhegaysataan noloshiinnu inay sidaa ahaato had iyo goor oo markaa wadaadku idin yimaado qura ayna ahayn had iyo jeer dad caynkaa wada fadhiya oo sidaa isu jecel oo gacmaha ishaysta oo wax isla qabsanaya oo kii buka isla og oo kii dhinta isla soo aasanaya oo carruurtooda ka ilaashanaya diin la-aanta iyo akhlaaq xumada oo xaasasku hadday iskhilaafaan had iyo jeer wada heshiisiinaya oo laba qof hadday isqabtaan dhex gelaya oo haddii mataqaana dhibaata timaado dhibaatadii meel uga soo wada jeedsanaya ina ahaataan ayaa la idinka doonaya baaraka allah fiikum wuxuu mataqaanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aw haddana inoo sheegay waxyaalaha mataqaana walaalnimada waxaa u dhima waxaa ka mid ah malaha xun qofka uu leeyahay hebel waxaan u malaynayaa inuu ninkaa hebele maaragtay arkaysa wanaagsan miyuu ninkaas inuu tuugiyaan u malaynaya ninkaa maaragtay waxaan u malaynayaa inuu yahay ninka habeenkii gabdhaha yaryar dariiqa isu taagay laga ammaan waayo ninkaa waxaan u malaynayaa inuu beenaala yahay ninkaa waxaan u malaynayaa inuu sidaa yahay malaha caynkaasaba ilaahay subxaana wa tacaala inoo diiday maxaa yeelay walaalayaal qofka muslimkaa asal ahaan waxa weeyaan caadil asalka qofka muslimkaa markaad aragto adigoo xumaan weli ka arag inuu run badana yahay inuu khayr badana yahay inuu cibaado badan yahay inuu wanaag badan yahay inuu niyad wanaagsan yahay saa u hayso ilaa aad xumaan ka aragto xumaan dusha adigu hala doondoonan ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adanni ina bacda adanni itm dadkii mu'miniinta ah haddaad tihiin waxyaalo fara badan oo malaa iska daaya malaha qaar fara badan baa dembiya nebiguna wuxuu yidhi alayhi salatu wasalaam iyaakum wadan fa ina adanna akdab alxadiid wuxuu yidhi malaha iska ilaaliya maluhu waxa weeyaan beenta tan u weyn weeyaan been oo dhan waxa u xun malaha mataqaanaa wuxuun la iska malmalaynayo waxaa kaloo markaa ilaahay subxaana wa taala haddana ilaahay inoo diiday oo aayaadka ku xiga ilaahay inoogu diiday tajasuska iyo isdabagalka iyo iscawra baadhbaadhka iyadana waa tiyo kale waxa weeyaan markaad suuqaad joogto qofka ha raacin meelaha uu gelgelayo iyo cidduu la hadlayo iyo wuxuusan samaynayo maxaa kaa galee qofka xorriyadiisa sii qof baa lagu ibtilaynayaa un qofkii meel maraba waa daba socda meeshii walba waa daba socda halkuu arkaba mataqaanaa muxuu ahaaye wuxuu leeyahay xagguu hebel galay halkanuu galay haddana halkanuu ka soo baxay hebel buu la taagnaa war waxan yaa kuu dirsaday adiga gurigiisuu soo gelaya waa soo booqanaya waxa weeyaan waxay ahayd intuu aayar sabab kursiga iskaga fadhiisto halkaa hortiisa uu eego oo isagoo sheekeynayo madaxa hoosu fooranaya qofkii ula sheekaysto laakiin aad halkan eegto oo haddana halkan eegto oo kolba kan eegto halkan maxaa ku sawiran halkan maxaa ka laalaada halkan maxaa godka kusii jira baadhbaadhka caynkaasi ee dadka la baadhbaadhayo waa saqajaanimo sidaa darteed baa ilahay yihi walaa tajasasuu hasaasuusina haisbaadhbaadhina macnaha mataqaanaa qofkii waa inuu ammaan kaa hela waxyaalaha xumeeya
walaalnimada waxaa ka mid ah xantan la isxamanayo waatan soo sheegnay isku dirdirka iyo beenta la iska sheega dhibka ay leedahay iminkana waxa weeyaan qofkiiba xamanaya markii rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam atadruuna ma alghiiba war xantu waxay tahay ma garanaysaan wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markii asxaabtii waxay yidhaha allahu warasuulu aclam wuxuu yidhi maxaa weeyaan dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalkaadood ka sheegto wax uu necab yahay kaasaa xan la yidhaha qaaluu fain kaana fii akhi ara'ayta in kaana fii akhi maa aquul markuu yidhi walaalkaadoo aad wax uu necab yahay ka sheegto ayay yidhaahdeen de ka war haddaan walaalkii ka sheego wax uu ceeb uu leeyahay masalan waxaan ku yidhi waa kii cawarnaa waa kii caloosha weynaa waa kii dheeraa waa kii gaabnaa waa kii mataqaanaa beenala ahaa waa kii sidaa iyo saa ahaa wuxuu ceeb uu leeyahan sheegay wuxuu yidhi fain kaana fiihi maa taqulu faqad ikhtabtahu haddii waxaad ka sheegayso ou run tahay waa xantu waa taa wain lam yakun fiihi maa taqul faqad bahadtahu waxaad ka sheegaysa hadduuna qabinna waad ku been abuuratay marka saa darteed inaad qofkii haddaad doonayso inaad ceebta uu qabo ka nahyido ha xamanine u sheeg oo intaad u timaaddo waxaad tidhaahdaa hebelow heblaay baaraka allahu fiik ilaahay khayra ku siihiye arrinta caynkaa iyo caynkaasa baan kugu arkay arrintaasuna waxaan u arkaa inay diinta ilaahay khilaafsan tahay inay arrintaasu adiga dhib ku tahay inaad dembi ka helayso walaal waa kuu naseexaynaya arrinta caynkaasa iska day intaad odhan lahayd hortiisana ka odhan maysid markuu kaa dhaqaaqana wixii waa dadka kale aad u sheegaysa adeer ka daayo haddaad qofkan ka naxayso markuu isku hor taagan yahay u sheeg waxaad iyadoo cidinla joogin waliba waani maxaa yeelay markaad qofka waaninayso ma aha dadkii hortiisa inaad ku waaniso shaahidkaas ummadaasu dhalkaa fadhido aad tidhaahdo hebelow wallaahi waxaan ku ogaaday inaad beenta sheegteen iyo ilaah ka baqo beenta iska day kaas waxba maad u tarina waad ceebaysa imaam shaafici baa wuxuu yidhi man nasaxanii fi ljalwa faqad fadaxanii waman nasaxanii fi lkhalwa faqad nasaxanii qofka macnaha meel dadku joogo iigu naseexeeyey wuu i ceebeeyey kaas wuu i fadeexeeyey laakiin qofka aanu keligay ii naseexiyey kaasunbaa ii naseexiyey haddaad doonayso inaad qofkan dembiga ou gelayo aad mataqaanaa muxuu ahaa qofkii masalan beentuu yaqaana waxbuu khiyaameeyaa waxbuu isweydaariyaa meela xunxun buu galaa intaad suuqa ka sheegi lahayd intaad u tagto isagoo keligiya soo wacdi laakiin suuqa ha kaga sheekeen oo ha fadeexayn ilaahay baa marka wuxuu yidhi ku shabbahaya xantan la isxamanayo tashbiih aad iyo aad u foolxun ilaahay wuxuu yidhi walaa yaktab bacdukum bacda yaan qaarkiin qaarka kale xamanin an yuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi maytan fakarihtum wattaqu allah in allaha tawaabu raxiim ilaahay wuxuu yidhi yaan qaarkiin qaarka kale xamanin miyuu jecel yahay midkiin inuu cuno hilibkii walaalkiioo mayda u fiirso walaalkiioo mayda hilibkiisa inuu cuno miyuu jecel yahay arrintaa waa nici lahaydiin ilaahay ka baqa ilaahay waa tawaabu raxiim ilaa calayk haddii lagu yidhaahdo walaalkaadoo dhintay oo aad awalba dhimashadiisii ka naxsanayd lagu yidhaahdo kaaloo hilibkiisii cun yaa kula aasa yaa kula maydha yaa kula kanfa yaa kula aasa yaa kugula tukada waxaasaad ka fikirsanay reerkiisii uu ka dhintay sidai aad mataqaanaa maxaad u qaban kartaa dhib baa ku haysa adoo naxsan inta xabaddu inta lagaa saray wallaahi haddaad cuni weyda maydkiisa xabaddaasaa lagugu dhufanaya sidee kugu ahaan lahay bilaa calayk arrintaas miyna foolxume macnaa tashbiiha wuxuu ilaahay ku shabbahayaa qofka muslimka ee walaalkiisa xamanaya inuu hilibkiisii cunaya asagoo mayda inaha aan soo sheegnay walaalayaal waxay macnaha ay inoo sheegayaan waxyaalihii walaalnimada wuxu dhimayey marka qof kastoo inaga mid ah rag iyo dumarba yar iyo weynba waa inaynu bal arrimaha aynu soo sheegnay oo ugu horrayso warka beentee dadka laga soo guurinayo ama isku dirdirka dadka walaalaha la isku dirayo la iska hor keenayo dadkii oo walaalo ah oo isdilayo aan la isku daawanayo aan la kala dhicinaynin haddii loo tagana cadaalad loo kala samaynayn dadka isyasaya oo qofka kale u arka inuu ka hooseeyo oo ka liito cayidan la iscaadaya saasaa tahay saa tahay laleeyahay naanaysaa xunxun ee la isu bixinayo
iyada oo mataqaanaa muxuu ahaaye muxuu ahaa dadkii uu qolay waxaasaan kuu malaynaya malada xuna caynkaas tajasuska iyo ceebaha qofkoo lasii baadhbaadhayo xanta la isxamanayo iyo weliba waxyaalaha walaalnimada xumeeya waxaa ka mid ah iyadoo qofka kale wixii mataqaanaa uu iibsanayay أو كدل متقنا محوها كفلسه أما أو يراوا كدل إبسانية يعني ولالك هذا الشيء عنتك وهي إبسانية أنت قلت ما دو ترى هذا شيء أنا كإبسانية دكان بعد شوكتا وكرفوه كمان بايعها كاسوق ولا مثلا أنت إيجاسي كي كله ولا مي يكر أدو شكلت ما دو ترى هذا ما أنا أنت كاسين إسكدانك وفيرسو أما مركو إبسادي أنتو العقد بحينما وبحية مش كذا قاعن أترى هذا بس كسيسة أترى تومبان كسي أنا عشان يتوقع كسير يوعل حسوا علم معناه وحويان إنه قفك كلا وحي إبسادي كدول إبساده وحياله ولا اللي مدح ماي إنه قفك متقنا نكون قبل الدون نكره قبل كلا كدول دون إنه متقنا محوها هاي وحبايع يكدول بايعه كل هذا إنه مثلا قبله أي تلاهذو نك حاس كاغا فر خاصة المركو دوني يقول كدوني يا سوون غير هرله هذا دوني سينا كقول سير غير كاغا غرفر الأحاديث تا أيضنا آن إذن مقشية إلهي وحول النبي وحول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا حسدنا مسلمين معناها حسدكم يقولوا وحيالها حماية على قدم مسلمين إنه قفكوا وحا ولا الكيها يستولن عباده أو إنه كبا بعان أو جعلاده أما إن لوجا قاده أو جعلاده شقة ونكسن بو هيا بكاسولة يا شقة ونكسن وهيا ما لقى هريو أما ما هنيجا لقاسي هير ونكسن بو نينك قوا أما قبل إنه ونكسن بيقفتا إذا قبل كاتم هذا نينك هذا يا يقاسي أما تنا قبل لقوا يا يقاسي عرور ونكسن بو لي عرور تما يكاد إنتام بو لي حاس ونكسن قبل موفرة أيو لي مرك حسد قوا وحيالها النوع عاصو كلو إنه ولالك حمان لن نجعلاته أما واحد هنا خيركم هيستوي إنه كبا بعض نجعلاته أما إن هذيك القاسي إلى يقول لا تحاسدوا هيس حسدنا ولا تناجشوا تناجس كوحويان مركع أو قف يبسر يقف كلا يكف اللس مركع الحراش هي شيء اللي قري لكن مركع يبكي عادي قاعد ولا تباغضوا هيس نعينوا هيس متغنى نعيبها كلا تجين ولا تدابروا تبرك هيسوي شيء ديننا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وقف إبسدي قف كلا يكدوا الإبسني أما وحو إيبي قف كلا يمر ما لقيت قف كلا أنا كيبسني عرم وكونوا عباد الله إخوانا تضوى على أو مثلا استجعل وقدم إلهي وعينا النقطان وحكمت وحيالا ولا لماذا حمية إنه نكو أنتو يمادوا نك لحاس كيسي قدروا أما قولنا نك يدي قدروا النبي يقول من خبب ليس منا من خبب امرأة على زوجها نقمد معها نين متغنى قبل دي نكيدي كدري وإلى هذا أنا كان كنت على هي هذا نكاga iska siida waa والله mid hadii gabar kale u timaado ama nin kale u yimaado ilaado gabadha mtaqaana maxaa hadii ala koran yahay ninkaaga maxaa iska siida ama gabadha ilaado mtaqaana hadii kale ilaado gabadha qabto mtaqaana iska siida ama uu ilaado mtaqaana gabadha intay nin u timaado aniga gurso hebla iska siida وحكى النبي عليه الصلاة والسلام أو أبو هريرة يلي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تجسسوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إناية يعني حديث وحويان ديال كورنيا هاي سفل السنة وأن ننكو وحو يبسنة ننك لكدو اليبسنين منكو قبلو دون ننك ليان ننك لكدو الدونين gabadhu yay ninka ka dalbanin inuu xaaskiisii hore furo waayahay arrimahaas oo dhan aynu soo sheegnay waa waxyaalaha walaalnimada xumeeya oo loo baahan yahay qofka muslimka ah inuu macnaha ka fogaado yaa marka dhinac kale laga eego النبي قال نوشي عليه الصلاة والسلام ولا لماذا وحيالها السجوا حكمده إنه قفك مسلم كا قفك كلام مسلم كا وحو نفتي سلج على لجعله
وحي النبي عليه الصلاة والسلام 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان صدق شيء قفك لقاهلا وحي هلا سبب تودا كهلا معانك إيمانك marka waxa laga fahmay mafhuum al-mukhalafa saddexda shay qofka aan laga helin macaanka iimaanka ma dhadhamiyo an yakuna Allah wa rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma inu Allah iyo rasuulka jeclaado oo jaceelku jecel yahay ka horeeyo jaceelku wax kastaba jaceelka naftiisa jecel yahay ku caruurtiisa jecel yahay ku aabihi hooyadii jecel yahay ku xaaskiisa jecel yahay ku walaalihii jecel yahay cid kastaba ha noqdo jaceelka Allah iyo rasuulka in wax walba ka hormariyo jaceelkaasoo macnaha ku xaqiiqoobaya inuu qofku marka hore ilaahay iyo rasuulka qalbiga ka jeclaado haddana awaamirta ay siiyeen aw qaato haddana wixii ay ka reebeen aw ka fogaado arrintaa ilaa qofka laga helo iimaanka ma dhadhamiyo ta labaad waxa weeyaan an yuxibba almar'a laa yuxibbuhu ilaa lillah inuu qofka jeclaado asagoon u jeclayn wax kale ilaahay dartii u jecel qofka ilaahay dartii loo jeclaado weliba markay qofka ilaahay dartii u jeclaato waxa fiican inaad u tagto tiraahdo hebelow ilaahay dartii baan kugu jeclay ilaahay dartii baan kugu jeclay aad iyo aad baad moodaa inay dadkeenna ugu yar tahay laba qof oo ilaahay dartii isu jecel waan garanayaa fatradii aan dhallinyarada ahaan jiray ee dacwadu iska cusbay sidaanu ahaan jiray rag iyo dumar intii dhallinyarada dacwada ku jirtay ee dacwadaas mataqaanaa ama faafinaysay ama qaadanaysay sidii dadkaas isu jeclaan jireen waxaan moodi jiray inaan cahdigii saxaabada ku noqono sida nafta la isugu hori jiray yaa bal hadda qiyaasday masaajid baa laga soo baxay darsi baa la bixiyey albaabadii masjidka ayaa inama yarar istaagayaan markaasaa xamar baanu joognaa waxaa la leeyahay dhallinyaradii masaajidka albaabkiisa la tegay waxaa leeyahay xaafadaha xamar way kala fog yihiin ninkaan baska wuxuu ku raaca haysanin hays sheego yaa haysanin wax bas ku raaco yaa wax ka dhiman yihiin waxaa la yidhahdana yaa baska wuxuu ku raaci lahaa wax siyaadaha haysta 3 kuma baska lagu raaca marka mid baa wuxuu leeyahay anigu waxaan bas ku raaca ma haysto waayo halkan istaag wuxuu leeyahay mid kale anigu waan haystaa laakiin laba kumaan haysto kuma iga dhiman midna wuxuu leeyahay laba iga dhiman mid baan haysta ka kalena wuxuu leeyahay aniga kuma i dheer midna wuxuu laba kuma i dheer sidaasaa markii la isku celcelinayaa adoo inamadii oo dhan baa waxaa la doonayaa in basas la wada saaro waa walaal isniintii khamiistaa la soomaya markaasaa leeyahay xaafadii au deganaa meel ka fog buu gobolku u dhacaya markaasu wuxuu leeyahay haddii ala ku ran yahay kol haddii halka gobolka ku dhacay nin saaxiibkaybaa aqalkiisu ka yahaado kolley afuraya albaabka ku garaacaya dabeedna markaasu ka furaya markaa ahlan wasahlan walaal wuu soo dhawaanayaa markaasu mataqaanaa siinayaa wixii au hayo la afuray timirtii iyo xoogaa biyihii la cabayaa dabeedna hadhow cashadii gurigiisii u doonay waxaan gaari jiray heer gabdhihii wadaadada ahaa ee beriga aanu gacanta ku haynay ninka gabadh naga guursada aanu xidid la noqon jiray annaga intayadaas oo dhalinyarada odhan jiray sidii qabiilo aan markaan la wada xididka wada jeclaan jiray dad ilaahay dartii isu jecel bay ahay marka macnaha alxubbu fillaah inay dadku ilaahay dartii isu jeclaadaan waa wax darajo aad iyo aad iyo aad u sarraysa oo aanan garanayn dadku gooray gaadhi doonaan dadku ay nafta isu hurayaan waa garanaysaan niman asxaab mataqaanaa waktigii muxuu ahaa niman asxaabtii ka mid a oo intay duulaan iyagoo dagaal ku jira markaa la dhaawacay mid ka mida intuu mataqaanaa walaalkii u keenay biyo au cabbo ama wuxuu sharaab u cabbo ou yidhi kaasaa iga darana sii markuu u geeya u yidhaasna kaasaa iga darana sii haddana mid kale kaasaa iga darana sii ay ku soo noqotay marka kii mid laga bilaabay oo 3dii kaleba naftu ka baxday mid baa biyihii cabbay intii kale naftu waa kalu baxday macnaha siduu mid kale ugu sii dhiibayay waa nafti loosu horo wey marka waxa weeyaan qofku inuu ilaahay darti mataqaanaa muxuuha qofka kale walaalkii u jeclaado waxyaalaha iimaanka macaankiisa u dhameeya ka mid tahay iyo inuu qofku gaalnimada necbaado inuu gaal noqdo kadib markii ilaahay gaalnimadii ka badbaadiyey inuu gaal noqdo inuu naco siduu u necab yahay in dabka lagu rido in dab lagu rido ma nacab lagu rido miyaad nacabta haa sidaasoo kale weyn gaalnimadu aadu necbaata oo gaalnimadu wax sahlan ayna kula noqon waxaa lii sheegay dadkiina soo haajiray ama soo bayhoofay in marka waxoogaa yar uu danka leeyahay inuu mataqaanaa haddii waxoogii beenta ila been unbaa meesha shaqaysatee haddii beentii u hirgeli weydo in la yidhaahdo horta adigu qaarkood lagu yidhi
مسلم مياتاي ما يانو مسلم ما يجي أو يلاهدو سوى وحوغا يرسو قاتو ما قرنا يعني مسلم ما يمركو ليه إنو دين تولن كقبح أنا وحويان قفك وحل دون يا إني مسلم نمضو شيء غالية أو نرشي سكوي بقى إلى النقط يعني إن قالوا بقى إن كلا حنت هاي إن دبل قرر مركا يدنا إن فهمتان وحن هبا هدي أنا قفك مسلم كمسلم ما درت تقولش على عنين إيه واحد شايل كاكو كدل ميرستو يسكر هير بانه صاحب بانه بري ما ركع اسكن نقاني لو هذا أباس أنت كدل ميرستو وأنا قفك إلهي درتي وش على عنين قال لماذا أنا مثلا أنعي إذا دبل قرر أنعبت هاي إيمانك ولي معاك يسر أربع ميس وبال ويان إيمانك معاك يسر مهليس إلى عاد قفك أوجعلاته إلهي درتي هو اللي بقول شكتات يا فلان إني أحبك في الله إلهي درتي ما خرج عليك وأرين لو بهاي هو اللي بهدي أضيالك يا هبرو أرنتها عين أسكو كريمي ذكر اللي يرد عامة تغنى أي مسكحة الجليان أو أسكت على بل تجارية إن الجبرك جبر كلاي وصاحب الدعاء آتنا ولا لإلهي درتي ما خرج عليك وترني يوم تناولوا إلهي درتي ما هي ولو خرج عليك أرنتها إلى لجارو معانك إيمانك لا مرة من يوي حقيقة وحكذا لنا يا مركب شعرك في الله ليسوج على هذا قضية الولاء والبراء إنه قفكم متغنى إلهي درتي وحج على هذا إلهي درتي وحنوع إلهي درتي وحب حيو إلهي درتي وحديدو إلهي درتي وحب حريريو إلهي درتي وحب قويو بل إلهي درتي أو إن أنت سننك لا قوريو أما قبلوا إنك إن أنت هذا أي قوري سننك لا إلهي درتي من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله ووالى في الله وقاطع في الله وأنكح في الله فقد استكمل الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم في إلهي درتي وحج على هذا إلهي درتي وحنعة إلهي درتي وحب حية إلهي درتي وحقوية قضية أديدة إلهي درتي وحريرية إلهي درتي وقوية إلهي درتي وحقورية إيمانك مركزه كاملا إخواني في الله إسلام كان وحي نجح حرامينية أما ولا لماذا إسلام كوحي نجح حرامينيسا إن قفك مسلم كألا عاد إن قفك مسلم كألا لعنده إن قفك مسلم كأدجال لقو قاضو أنت بوالين ودي بل عندك يسنو حديث تكسر موضوعه ورسولك النبي صلى الله عليه وسلم استباب المسلم فسوق وقتاله كفر عيدا قفك مسلم كألا عايا وفاسق نمو يعني فاسق نمو حيث هاي معناه طاعة إله بكاد حصار يسا مركز قفك مسلم كعيدو طاعة إله بعد كده بحصار فاسق بعد نقولس مركز ضد قال أنتو وعد قال كي حلاشته يدو صوب شرعي يشرنا يدا أنا دين تاد كجا بحسه هو النبي صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله قفك مسلم ك لعنة الله نعاه وقدلك يسوكره وحيري لا ترجعوا بعد نبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أنا كذلك هو نقولنا قالوا قارب قارك كلا قرتك قويني ده في الصلاة أنا ترى هذا أنا هدان ناير هير بني قنصح هير بني قراع يقولوا وانو حلال هير هبل يقولوا وانو حلال أفك أي سومالي مركز تقالما يا أي هذا مكمل رسولك عليه هاي ورقالها ونقولنا مركز أنت كذب قالها ونقولنا قارب قارك كلا يقولوا حلاشني كل دي جلس حلاش هذا قرط الإسكان جويو معناها قال أيالا نقوليه قفكم مركو قف مسلمة سقوم قال هين أو إلى هذا هو قال دبنا أو حبت كل فتاة أما حقوق الحياة سدا كديرو دين تكلية لو كبحيت وحول عليه الصلاة والسلام لا تلعنوا بلعنة الله لعنة إله اسكول عن لعنة الله على فلان أورنن وحول عليه الصلاة والسلام لا يرمي الرجل رجلا بالفسق أو بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك وحول قفك كلا إلى هذا قال باطل أما إلى هذا ما تقعنا فاسق باطل فاسق نمدي قال لماذا أو الشيء أسرع يكون قنصا هدونا قفك أو قال كفاسق كل شيء سيد الشيء أو ناهي يعني قفك مرة قفك قال ويهبل هدونا قال هين كي يبقى قال نقني فاسق مرة كل شيء أسرع فاسق نقني
markuu bidci ku sheego asaga bidci ahayn asaga bidci noqonayo taana wayna ogaataa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi muslimku waxa weeye qofkii muslimiintu ay ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa u fiirsa walaalayaal muslimku waxa weeye waa qofka muslimiintu ay ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa walmuhaajiru man hajara maa naha allahu canhu muhaajirka ninka la yidhaahdaana ama qof kale waxa weeyaan qofkii waxa xun ka haajira wuxuu islaamku inaga xaaraamaynaya intaynu isu cadhoonno aynu kala tagno sidaa ku kala tagno oo 3 maalmood ka badan aynu kala maqnaano wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu wakunuu cibaada allahi ikhwaana walaa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fawqa 3 yaltaqiyaani fayucridu hada wayucridu hada wa khayruhum aladii yabda'u bisalaam wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haysun cadhoonina cadhada macna wala cadho macnaa cadho lagu kala tago oo isnacayb keenta haysnicina oo haysxasdina oo dhabarka haysu jeedinina addoommadii ilaahay oo walaala'a noqda uma xalaalaha uma bannaana qofka muslimkaa inuu walaalkii ka maqnaado cadho kaga maqnaado 3 maalmood ka badan iyagoo kulmaya hadalkaa u fiirsada qofka muslimkaa xalaal uma aha inuu walaalkii cadho kaga maqnaado oo ay kulmaan iska hor yimaadaanoo midna xaggaa u jeedsado midna xaggaa u jeedsado labadooda waxa khayr badan kii salaanta bilaaba